السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalka walaalaha family. waa mar kale muuqaal hor oo idinkaga diyaarinay musalsalka walaalaha maxaa ka cusub sidoo kale maxaa ku soo kordhay. Haddaba musalsalka walaalaha xalqadaha nagu soo wajahan waxaa lagu soo dari doonaa gabadh cusub. marka muuqaalkan ay idinku wadaagana magaceeda iyo doorkeeda iyo sababta loogu soo darayo waqtiga ay imaneysaba. haddaba daawada haddii tamarku waa soo booqatay janaalkan subscribe sar sidoo kale muuqaalkan like noo saar. waa mahadsantahay taa ka bacdi soo dhawow. haddaba san wada ognahay maalmihii u dambeysay duurukiya asi way isku faraxsan yihiin wax isku dhacana halka ugama jeedno isku dhacyo kala badan ayaan uga jeednay musalsalkaas sida Suuseeye Cumar u kala dhamaatay oo isku soo laaban doonin sida loo badinayo iyo sidoo kale IBK iyo Beerka oo markaan si xun ayaguna u kala tagay oo ayagana loo badinayo mar kale inaysan isku soo laabanaynin. haddaba qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku qaada dhigaynaa muuqaalkan ee daawada muuqaalka like inoo saar. haddaba qaybta u horeysa IBK iyo Beerka ayaga maxaa kala haysta dhibaatada kala haysata maxay tahay. saan wada ognahay xalqadii u dambeysay ee 62 faaladii hadda soo daawatay dabcan waxa laga yaabaa inaad fahmi kartid. waxaan ku aragnay yarkan Beerka lagu magacaabo oo u soo bandhiganaya IBK in ay la heshiiso. hase ahaatee maba xumee gabadhii IBK ahayd maysan ka diidin bandhigaasi loo soo bandhigo heshiiskii wayba ogolaatay laakiin sidoodii hore maysan noqonin. Beerkina IBK wuxuu ka dalbaday waqti yar oo isku soo soxo sidoo kale qaadadaadkiisii ayuu qirtay wuxuuna qirtay in uu iska yeelayay waxad ka baxana uu sameynayay oo IBK-na ka saxsanayd. haddaba sheekadu markii ay sidaas ahayd oo yarkan Beerka lagu magacaabay isla IBK waa heshiiseen ayaa waxaa dhacday in uuba arko ninkii toolga ahaayo u yeedhaya IBK isla markaana wuxuu u sheegayay asiya dhibaato ku soo socota ayuu u sheegayay. Beerkii midaas ayuu aad uga xanaaqay markii ay kulmeenna wuxuu weydiiyay sababta uu toolga ugu yeedhay. sidoo kale ayadana waxay ku tiri toolga kaliya wax yar ayuu ii sheegayay asagana intuu isxanaajiyay ayuu dhahay wax uu ku sheegay malaha ninkaasna maalin walba aan kugu arkaa kamana fogaanaysid ninkaas iga raacday qaybta toolga ayaad raacday mar waliba oo la murmay xitaa asaga ayaad u helinaysaa garabkiisa ayaa taagan tahay ee IBK-na waxayna sameynaysid waa qalad waqtigaasi maysan laba kala tagin. haddaba IBK ayaduna xanaaqayso waxay ku dhahaysaa adiga ay wax qaldan ayaad sameynaysaa ilaa ya haddana maskaxdaadu maysan soo laaban. Beerkina intaas ayuu ka xanaaqayaa waa iskaga sii tagayaa ha iskaga sii taga ma xumee wuxuu markale arkayaa ama uu maqlayaa in toolga iyo IBK habeenkii u dambeeyay ay wada joogeen oo IBK ay tagtay guriga toolga iyo arrinkaasi ayuuna haddana markale aad uga sii xanaaqayaa halkaasi ayayna ugu kala dhamaatay IBK iyo Beerkii inkastoo la hubin ayaga kala tagooda oo Cumar iyo Suuseeye sida loo hubo ayaga looma hubo kala tagooda laakiinse wajiga IBK waxaan uga jeednay inuu aad u xanaaqsanaa waqtigaasi oo aad uga xanaaqday wuxuu u sameynay Beerkii maadaama uu bahdiray yarkan lagu magacaabo toolga wax walba uu ka sheegay karana uu ka sheegay sidoo kale uu ku kalifay in toolga qalbigiisa wixii ku jiray uu banaanka keeno. arrintaas IBK aad uga xanaaqday ilamana ahan in ay isku soo laaban doonaan maybe in isku soo laabtaan laakiinse fikirkayga iyo sida hadalhaynuhu sheegayaan kuwa isku soo laabanaya kuwaasina uma ekan. waayahay ha ku xigsiino aasi iyo Duruuk kuwan runtii markaan farxadooda waa ay badatay iskumana dhacayaan markaan seasonkan saddexaad suu u bilowday labadaan isku dhacaya maana aragba farxadoodu waa sii siyaaday wuxuu gaaray shaqadeeda uu raaco shaqo cusub ay Aasiya soo heshay ay ahayd shaqadaasina ma ahan shaqo ay mar waliba ka shaqeynayso ee waa shaqo kaliya markii loo baahdo uu la wacayo ama hooyadaasi shaqada rabtay markay caruurteeda ka tagayso ay Aasiya wacaysa si caruurta Aasiya ula sii joogto una sii ciyaarsiiso sidoo kale u seexiso. marka yarkan Duruuk lagu magacaabo Aasiya ayuu shaqadeeda la aadayay markaan sidoo kale caqabad dhanka xaafadda Duruuk ma haysato oo waagoor waxa lagu dhihi jiray gabadhan iskaga har laakiinse markaan qof iskaga har dhahay ma jiro aabihiisa lama galo way kala go'een sidoo kale hooyadiisana waa miskiin yar oo ayadu meelahaas ku silicsan oo nin Axmed Ilmaas lagu magacaabo kola daba ordaysa kola ka hadaysa kulli taas mawduuceeda muuqaal kale ayaan ka sameyn doonaa han si wadana sheekada waa tahay gabadhan lagu magacaabo Ozge Akdinis ayaa hadeen filaya magaceeda xoogahan ku laabto sax Ozge Akdinis ayaa lagu magacaabaa. gabadhan runtii sida loo badinayo 90% waxa la leeyahay Aasiya la saaxiibaysa halka in yar oo aan wax ahayn ay leeyihiin waxay kala dhex kari doontaaba Aasiya iyo sidoo kale
Asiya Duruka ay kala dhexgalaysaa laakiinse arrinkaasi waa been oo gabadhan ayada ayaa afkeeda ka sheegtay story ay soo qortay in ay Asiya la saaxiibi doonto garabkeeda noqon doonto. waa tahay gabadhan cusub waqtiga ay imanaysaa ma xalqadee ay imanaysaa saan wada ognahay hadda waxaan ugu soo wajahan xalqada 63aad haddaba 63 wixii ka dambeeyay ayay gabadhan imanaysaa marka email ay caafimaado email saan wada ognahayba gooska saan u aragnay waa mid caafimaad qabto dhakhtarka la geeyo sidoo kale hadlaysay markay email caafimaado Asiyan dhibaatooyinkaas ay iska ilowdo ayay gabadhani iskeenaysaa oo imanaysaa. haddaba gabadhan sababta loo keenayo maxay tahay badi waxaa la leeyahay masay macluumaadadu sheegayaan markii meelo badan ka eegay gabadhani waxay kala dhex gali doontaa Suuse iyo Cumar maadaama Suuse iyo Cumar u kala dhamaatay. haddaba bal ugu horeyntii Suuse iyo Cumar sheekadooda iyagana han in yar bilaabo iyo taariikhdooda. haddaba isla xalqadii u dambeysay qoftan lagu magacaabo Suuse waxay u soo bandhigtay Cumar yarka lagu magacaabo in ay heshiiyaan isla markaana Cumar waa uu ka ogolaaday ayay ahayd ma xume casha ay isku ballansadeen cashadiina Cumar waa uu u jaray isla markaana waxa uu cashadii uu Suuse la kulmi lahaa ka doortay in uu Tolga iyo Leyla badbaadiyo maadaama aabahooda aad ugu xanaaqsay Caakifna uu bahdilay ayay ahayd. marka yarkan lagu magacaabo Cumar si uu ordayay wuxuu tagay gurigii Leyla iyo Tolga ayuu tagay ma xume ha tagay markii uu tagay kadib waxa uu sabab u noqday in ay badbaadaan Leyla iyo Tolga. markaasna waxaa meeshii ku sugaysay oo iyadoo hoteelkii lagu ballamiyay fadhiday qoftii Suuse ahayd isla markaana fariin ayuu u soo diray ayaa ahayd wuxuu ku dhahay garal noqoca oo meemi karin hawlo badan ayaan ku mashquulay ayaduna waxay dheelahayd ficnaan lahayd ayna mar hore ii sheegtay si aanan in badan kuu sigin waqti badan ay halkan igaga lumay ayadoo xanaaqsan ayay cunugtii halkaasi ka soo kacaysaa gurigeeda aadaysaa gurigeeda markii aadana yacni kaameradana lama wasiiqa qabanaya calaa kulli xaal way hooyanaysaaba. haddaba subaxdii xigtay ayay gabadhii Suuse ahayd iskeenaysaa dhankaasi oo iskuulkii ay iskeenaysaa marka ay iskuulkii timaadana Cumar ayaa ku dhahay waan ogahay inaad ii xanaaqsan tahay balse waxaan rabaa inaan kuu sharaxo ayaduna waxay dhahaysaa wax xanaaqo oon kuu qabo gabi ahaanba ma jirto anigana waan ku cafiyey maadaama shaqo darteed ahayd waan ku cafiyey waan ogahay shaqadaadii aad ku mashquushay waana lagu diiday inaad fasax soo qaadatid marka waan ku cafiyey. Cumar asagoo arrinkaasi aad ugu faraxsan oo isla saaxiibadiisa hore u sii kacayso dhankaasi kafeteriyaha Tolgaagii aan wada garanaynin hadda waad garanaysinkaas inuusan aamusaynin hadalka uu caanka ku yahayna waxa ay tahay ma taqaanaa ayuu ku dhihi ma tiri baan ka wadaa ma tiri ayuu ku dhihi. marka Tolga ayaa dhahaya dhalinyaro ma ii sharxi karteen xalay sababta aad noo soo booqateen markaas kadib qoftii Suuse hadalkaasi meel ayuu kaga dhacayaa isla markiiba wajigii soo kala jeedinaysaayo waxa dhaysaa Tolga maxaa soo jeedaa ii sharax micnaha kadib waxay fahmaysaa in Cumar iyo kuwan kale la socday Uljaan iyo IBK iyo xalay ay la joogeen ninka lagu magacaabo Tolga halkaasi ay Cumar iyo Suusaana ku kala xanaaqayaan wax yar kadib waxaan arkaynaa qoftii Suuse ahayd oo Cumar la hadlayso ama Suuse ahayd oo waxay ku dhaxaysaa Cumar oo markaa labadeena noo kala dhamaato aniga ma doonayo qof been ii sheega sidoo kale kuma rabi oo cad ma dhahays laakiin waxa dhahaysaa aniga ma doonayo qof ii been ii sheega marka ma doonayo xiriirkeenu soo socda halkan noogu soo ekee Cumar halkaas ayuu ku baroranaya ku ooyaa. marka gabadhan Osge Agnes magaceeda saxda uu yahay magaceeda kale weli lama soo hubin kulli waan ka daba tagi doonaa insha Allah maalmaha soo socda ilaa caawa in loo sheegay aan filayaa gabadhaasi waxay kala dhexgali doontaa aniga fikirkayga Suuse iyo Cumar bal adigana fikirkaaga daawada nala wadaag in badan ayaan wax saadaayno run noqdeen bal adigana markaan fikirkaaga nala wadaag. waa tahay daawada inta waxaan ku soo ekeynayaa barnaamijkan ugu talagalay gabadhaasi cusub ee daawadee muuqaalka like noo saar sidoo kale janaalkan haddii aad ku cusub tahay kaliya waaye subscribe saar waa maasan tahay waanigoo saaxiibkiina Khalid sida caadada ahayd. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.